ganacsatada kala duwan ee magaalada Boorama ayaa waxa ay ku soo bandhigeen gudaha magaalada Boorama goob loogu talagalay in ganacsiga kala duwan ee gudaha magaalada Boorama yaala lagu soo bandhigo ganacsiyada kala duwan iyo adeegyada ay u hayaan bulshada qaybeega kala duwan madashii lagu soo bandhigay ganacsigan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala tirsan wasaaradda ganacsiga iyo maamulka gobolka iyo kan degmada iyagoo mas'uuliyiintii hadalka iska daba qaatay dhamaantood sheegay guud ahaanba goobtan inay ka maqan yihiin wixii waajibaadka ahaa ee dadka reer Somaliland wax soo saarka u ahaa ee hidaha iyo dhaqanka cuntooyinka kala duwan ayna dadka faa'iido u lahayn iyo carwooyin kala duwan oo iyagu awalba dadka dharka kaga iibinayay dukaanadooda suuqa ka yaala haatan ayna faa'iido u lahayn runtii waxa jira waxaan halka ka muuqan wax soo saarkii dalka oo u baahan inaynu soo bandhigno maadaama aan nahay dal wax soo saarkeenu inuu ka muuqdo meeshan ayaa aad muhiim ah waa mid dhiirigelinaysa inay dhalinyaradu boodhka iska jafaan waa mid indhaha u furaysa jiilka soo kacaya waa mid dhiirigelinaysa inuu ganacsigu kor u kaco ummadna marka lagu qiimeynayo horumarkeega waxaa la eegaa dhaqaalaheegu sida u kobcay run ahaantii aad baynu uga wanaagsannahay sanada aynu soo dhaafnay waana la qabaa agaasimaha rugta ganacsiga dhalinyaradu inta badan waxay ka fikirayaan waxyaalaha ummadda kale ay abuurtay inay had iyo jeer soo bandhigaan laakiin waxa loo baahan yahay inaad meesha keentaan wixii degmada ka soo baxa number 1 oo dadka ku soo wacyigelisaan si ay kale ugu dhiirato inay wadankooda wax kala soo baxaan cid kasta oo ku garab gashay in hawshaasi ay qabsoonto oo dhalinyartaas ay qabato iyagana halkan mahadnaq baan uga jeedinayaa sida Habshiil Group iyo Talisom labadaba waxaan leeyahay markaa sidii gudoomiyaha ugu horeeyay sheegay gudoomiyaha gobolka uu sheegay waa runtii waxay u baahan tahay dhalinyarta in lagu dhiirigeliyo inay dhalinyartu wax qabtaan markay isku dayaan inay wax qabtaan in la garab joogsado oo dhammaan lagala qayb galo waxyaabaha ay qabanayaan wax kastoo la qabtaana waa sadaqad kullay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarta soo abaabushay in maanta ay soo bandhigaan ganacsiyeedka ay ka soo qayb galeen dhammaan shirkadihii ganacsatadii iyo dadweynihii reer Boorama ganacsatadana aad baan runtii uga mahadcelinayaa inay soo dhaweeyeen oo ku dhiiradaan inay nimanka maalgeliyaan oo ay wax la qabtaan oo ay u soo joogsadaan oo keenaan qalabkoodii wixii ay ka ganacsanayeen goobta keenaan inta ka dhiman sida baaxdii ka horeysay ay sheegtana lagu soo daro taasir sheegaya tan kale maanta waxaan doonayaa uga faa'iideysto marna waxaan xafiiskayga shir ku lahayn guddiga abaaraha heer gobol oo runtii aad qayladhaan ay la timid oo ka cabanaysa in abaartii ay ka sii darayso in maalin ka dambayso awal waxaynu u gurmanaynay dadkii inagu soo baxay maanta dadkii deegaanka wax u baahan marka businesska dadkan maanta ganacsatadana inkastoo shirkad Talisom aad ugu mahadcelinay waxaan doonayaa inay iyana qayb ka qaataan haddoogaa sadaqado la bixiya waxba laguma waayo wax lagu helo mooyaane sidoo kalena Boorama News ayaa la hadashay ganacsatadii kala duwaneed ee iyagu goobtaasi ganacsigooda ku soo bandhigayay gobolada Somaliland taasoo suurtagelisay inay iska dhexgal bulshada arrimaha bulshada waxaan halkan ugu uga mahadnaqaynaa maxaydaanay customerka qaaliga had iyo jeer nagu xidhan meel walba joogta shirkadda Carwo Kooshin ku xidhan oo u haqabtiray maxaydan dhibdada ugu adag ay ku taagan yihiin maxaydan shirkadda Kooshin marka aad iyo aad baan macaamiisheeda hore iyo kuwa dambe u soo dhaweynaa waxaan ugu leeyahay waa qiimo dhimis 50% oo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa taadiya jeerana waxaan dhiirigelinaa maxaydan dhalinyarada hadday noqoto sport arrimaha bulshada dhan gobolka ugu horeyso waxa uu leeyahay rag hormuudka haddaan nahay Kooshin waxaan aad iyo aad joogo horna hadii la qabanayo maxaydan sportiga hadii la qabanayo carwo ganacsiyeed hadii jeer waxa soo dhawaxan ugu hormuudka ugu horeeya ee dhiirigeliyaha maxaydan dhalinyarta taasoo hadii jeer maxay noo suurtagelisay inaan ku yeelno customer badan na kabsadaan dhalinyartu markaan hadii jeer wax dhalinyartu baatay hana qabtirno waxa li waxay nooga baahdaan maxaydan oo keenaa meel walba maxaydan aan noqotay taay hadii jeer waxa suurtageliyay maxayna managerka guud maxaydan Mustafa Dugsiye baday oo halkan aad iyo aad ugu mahadnaqay halkan waxa ka salaamaya
maxaydaan shaqaale aad iyo aad u fircoon maxaydaan Boorama News waa hadiya jeer hariya habeen u taagan inay ka gudbiyaan waxa gobolka wax tara hadiya jeer maxaydaan hadiya jeer ka gudbiyaan maxaydaan gobolka Awdal marka Boorama News waxana Boorama News watayo xaqabtiraha weeyaan maxaydaan saxaafadeeda gobolka Awdal